madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu eedeynayo inuu yahay xooladoon aan dowladnimo aqoon ayaa hal sano jooga filla Soomaaliya isagoo sanadkiisii koowaad ee muddo xileedka u dhaqaaqay muddo kororsi uu rabo inuu xafiiska ku sii joogo. tilaabadan uu dhawaan qaaday madaxweynaha Soomaaliya ma ahayn mid dastuuriya iyadoo uu xasan sheekh qorshihiisa sii dhexmarsaday qaar ka mid ah madaxda maamulada oo waqtigii ka dhamaaday. sidaad la socotaan bishii Abriil 2021 magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal lagu diidanaa muddo kororsi 2 sano ahaa oo uu qaatay madaxweynihii xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadkii qoriga u qaatay diidmada muddo kororsiga waxaa ka mid ahaa madaxweynaha haatan xukunka jooga Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo maanta isku dayaya inuu xalaal ka dhigto wixii uu diidanaa shalay isagoo garanaya khatarta ka dhalan karta. sidoo kale dagaalka al-shabaab oo ciwaan weyn ka ahaa xukunka Xasan Sheekh halkii sano ee uu joogay xafiiska ayaa u muuqda inuu fashilmay, iyadoo halka sano ee dadka loo sheegayay inuu socdo dagaal ka dhan ah al-shabaab lagu eedeynayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh inaysan la imaan wax aragti dagaal ah, iyadoo ay dowladdu kula daaratay dagaalka al-shabaab qabiilo Soomaaliyeed oo is-abaabulay kuwaas oo go'aansaday inay dhulkooda ka saaraan kooxda al-shabaab. waxaana uu kacdoonkii ay shacabku dhaliyeen ku soo idlaaday wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab, kaas oo ay wararku sheegayaan inay xubno ka agdhow madaxweynaha Soomaaliya ka sameynayaan dhaqaale fara badan. sidoo kale shir ka dhacay 5 bilood ka hor magaalada Muqdisho ayay dowladaha dariska la Soomaaliya isku raaceen inay siiyaan dowladda Soomaaliya garab maaliyadeed iyo mid ciidan si ay Soomaaliya uga adkaato argagixisada al-shabaab. waxaana muuqata inay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhaqaale raadis tahay. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo intii uu xafiiska joogay wuxuu jeediyay khudbado tirabeel ah oo aan wax macno ah u lahayn dalka, walow ay mararka qaar hadallada madaxweynuhu iska hor imaanayeen oo ay dhaawac siyaasadeed ku ahaayeen. waxaana uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo raadinaya inuu kasbado qulubta shacabka Soomaaliyeed ayaa si asbuucle ah ula hadlay dadweynaha, waxaana ay dadku shaki geliyeen hadalka madaxweynaha iyo ficilkiisu inaysan islahayn, taasi oo macno tiraysa hadallada madaxweynaha Soomaaliya oo waayadan shaashadaha aad uga soo muuqanayay. sidoo kale markii uu dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ogolaaday in dalka la geliyo muddo kororsi isku raran ah oo loo sameynayo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira, waxay dad badan u arkeen inay tahay wax aan la liqi karin oo sharci ku tumasho ah, taasi oo dadka u sawirtay inuu madaxweynaha Soomaaliya ka fikirayo sidii uu xukunka ku sii joogi lahaa isagoo xilli hore bilaabay inuu samaysto muddo kororsi. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu eedeynayaa inuu qaatay awoodii xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ay waayadan taagnayd xiisad siyaasadeed oo ku aadan inuu madaxweynaha Soomaaliya awoodii dowladda ku soo koobay xubno ka tirsan qaraabadiisa iyo siyaasiyiin ka agdhow, taasi oo macno tirtay dowladnimada Soomaaliya. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.